inay bartaan u sahlan waa xirfadii xirfadaha sahlan xirfad kasta ayaa sahlan laakiin xirfadaha adag aan ku sheegay xirfadaha adag waxa kamid ah laakiin qof hadana baran karo uusan dhahaynin way adag tahay sidaas asaga dhaafo xirfadaha adag waxa kamid ah xirfadaha oo kaafa wala dhaho kaufmanship raayq oo dadka xafiisyada ka shaqeeya xafiisyada qofka ka shaqeeya markuu rabo inuu sameeyo house building way adag tahay shirkadu wuu heli karaa iskuulkana wuu aadi karaa laakiin waad ogtahay house building markii la sameynayo waxay u baahan tahay 4 maalin ama 3 maalin oo practice ah iyo 1 ama 2 maalin oo iskuul ah okay xilligii practice ahaa ee aad ku jirtay kaafawga ama shirkadaha ganacsiga aad u shaqeynaysay waxa lagu soo hordhigayaa kursi iyo miis dadweynahaas Switzerland degan ayaa waxa la rabaa in telefoon ku kala hagto oo dhahdo qof kasta oo soo waamo qof kasta xafiiskii kugu imaado in aad si fudud wax ugu sheegi karto qancin karto marka xirfad u baahan markasta luqad hadii ahaan lahayd tii wadanka looga hadlayo dialecti khaas ku ah ee Schweizer Deutsch ama tii Hochdeutsch labadaba marka waa xirfad inta badan xirfadaha qaarkood luqad ay u baahan yihiin ama xirfadaha kale ee hani farqi arbeit la dhaho gacanta laga qabto sida tan hadda aniga baranayo ka xirfad maurer waa dhismaha ku saabsan tahay xirfado waxa jiro Schreinerka mobilkii alwaaxdi iyo armaajooyinka sida loo sameeyo xirfadaha oo gacanta laga qabto inta badan shaqadii kaagama baahna luqad badan oo gacanta wax ka qabanaysa marka waa xirfado ay badan yihiin aad baad u mahadsan tahay Cabdiqani waxa su'aasha kale oo aan rabay inaan ku weydiiyo dadka Soomaalidu intee u jiraan horta qaxootiga wadankan Switzerland ku nool macnaha wadanka Switzerland waxa ku nool qaxooti aad u tiro badan ama dad aad u tiro badan oo Islander ah meesha ugu jiraan ma ugu hooseeyaan ma dad laxad miya siyaabay wax u bartaan xirfadaha iyo iskuulaadka wallahi inkastoo aan u kuurgelin arrintaas oo wax badan ka sheegi karin haddana dadka Soomaaliyeed waa dadka ugu tirada badan qaxooti ahaan marka la dhaho Sri Lanka iyo Eritrean ayaa maaragtay aan nasoo cariiriyo waa dad aad u tiro badan wadankii Switzerland ku nool ma dadkii ku dhashay mise dadka oo hadda soo galay dadkii ku dhashay way inta badan waxay u badan yihiin dad oo house building sameeyo wax barto laakiin inkastoo ay jiraan dad aan wax baranin dadkaasna waxa saacidayo waa lagu riixaya lagu cariirinaya maadaama wadankii min koowaad dugsigii hoose ilaa isagaalaad ay soo dhameeyeen waa dad lagu cadaadinayo lagu khasbay waxbarashadii xoog inta badan laakiin dadka hadda soo galay markii aan fiiriyay ama aan raadiyay wax xirfad sameynayo waa dad faraq ku tiris ah oo aan dhamaynba 10 qof inaysan gaaraynin ayaan u malaynayaa maxaa ka hortaagan gaar ahaan Zurich markaa fiiriyay 3 qof ayaan helay miyaams 4 qof oo waxbarashadii ilaaraha ku jirto waxaana degan dad kumanaan qof 2,000 ka badan soo malayna maxaa ka hortaagan dadka inay dhamaantood ay xirfad bartaan ama ay waxbarashada sii wadaan dibku weyn markaa weydiiso qofku wuxuu ku leeyahay anigu xirfad hadaan galo sharci ma ku qaadan karaa sharci la'aan ah heeso laakiin haddana waxaad arkaysaa asagoo sharci qaadanin xirfadii lagu soo kordhamaynayo oo shahaadadiina gacanta lagu haysto welina uusan asagii sharci qaadanin ama uusan shaqo fiican helin marka shaqo liidata iyo inuu hoos ka shaqeeyo uu niyad iyo waqtiga ayuu xitaa ka niyad jabaya wuxuu ku leeyahay daadayda sii socota mar raba hadda kadib inaa iskuul fariisto ama markii wadanka soo galay ayuusan luqadda baran uusan xoog saarin oo luqadda uu iskuulkii ku fariisto male marka waxyaabo badan problemo badan ayaa jira oo dadka ka xanibayo Cabdiqani maxaad ku talinaysaa dadka Soomaalida oo degan wadanka Switzerland qaasatan magaalada Zurich maxaad ku talinaysaa والله waxaan kula talin lahaa dadku in maxaa dhahay ninkii saddex qodob hadda ka dhawaajibay qalbigiisa ku jirtay ama sharci ku sugay sharci ka hor istaagto waxbarashada ama luqadda ama wax walba inuu hadda jaanis haysto oo waxbarashada dhanba ay tahay 3 sano iyo sanadka aad raadinayso 4 sano laakiin cimriga uu intaas ka badan yahay haddii Ilaahay ku deesto 50 sano si noolaan karto marka 3 sano ama 4 sano hadaadan maxaa dhahay aadan ka faa'iideysan fursadan aad hadda haysato oo hadii aad luqad ka cabanayso aadan waxaad sameyn kartaa luqad ka cabanayso xitaa in aad dhowr bilood ama 6 bilood ilaa waddanka 5 sano joogto ku bilaaban tahay sharci hadda waad xilligii la qaadanaya joogtaa wax walba in uu maxaa dhahay dadku ay
wax bartaan maxaa dhacay waddankan laguma nagaanayo laguma waarayo waddankeena ayaa na sugayo oo hadda nabad ka dhacday intaas ayaan kula talin lahaa luqadda dhibkeeda qofku iska maaragtay uu baran karaa dadkii hadda oo soomaalidii ayaa dadka qaarkood wax bartay masaacidi kara xitaa haddii uu ula tago waxyaabihiisa anagoo markaa luqadda baranay dad ayaa ula tegi jiray oon dhihi jiray war iga cashiradan igu adkaaday bal ila fiirfiiriya miski kow markaan luqadda dhiganayo laakiin qofka hadduu uusan dadkiina ka xishooda uusan wax weydiinin waxaa dhacaysa isagoo dhowr iyo 10 sano joogo in uu dhaho sidii nin hadda kahor igu dhacday sheekh waa turkish buu ku hadlayay masaajid af turkishkii buu maaragtay ku daldalmayay midba iyaga fadhiyaan waxaa iri muxuu ku hadlayaa ninka markaas wuxuu dhahay jarmal luqadii turkishka iyo jarmalkiiba ma kala yaqaanaba tee waddankii laga lahaa marka dhibaato weyn waaye kaasina wuxuu ahaa cabdi qani oo ku magac dheer r oo ah dadka integrationka sameeyay waddankan Switzerland cabdi qani aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wadna haysanoo leediisan nafta maadaway wadna haysanoo leediisan soo gaaray xilligii aan idin soo gudbin jiray ciyaarihii waxaa la diyaaraa Master Cabdidare barnaamijka toddobaadka waxyaabaha aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah Serie A-da Talyaaniga liigaha Isbaaniya iyo Premier League Ingiriiska Bundesliga Jarmalka waxaa kala oo ku soo qaadan doona waxyaabaha ay ka qoreen wargeysyada ka faaloodo arrimaha isboortiga isbuucan wuxuu soo maray isbuuc aad iyo aad u xiiso badan waxa aad iyo aad fiiro gooniya loo lahay ciyaar dhaxmartay AC Milan iyo Livorno ciyaartaasoo aheeday ciyaar ay taageerayaasha AC Milan aad iyo aad ay farta u godayeen tababaraha cusub ee sanadkan dhexdiisa loo magacaabay kooxda AC Milan ninka lagu magacaabo Serbov ninkaas oo ah nin madooba ka soo jeedo qaaradda Latin America ninkaas oo kooxda AC Milan u ciyaari jiray ilaa 10 sano tababarahaas oo kooxda Milan ayna aad u la dhacsanayn iyo ninka milkiilaha
ka ah kooxda AC Milan oo ay taageerayaashu sida uu kooxda hadda u maareynayo ayna aad iyo aad uga dhacsaneen iyo gabadhiisa lagu magacaabo Barbara Berlusconi oo taageerayaashu sida ay sheegeen aan xabada ka aqoonin maamulka ciyaarta. Waxa kale oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ay dhaxmartay Parma Inter Milan oo sanadkan hoos u dhac aad iyo aad u weyn oo ayadana ku yimiday lagu magacaabay reer Milan iyo masiibadii sanadka 2013 laakiin Milan iyo Inter way wada badiyeen isbuucan. Inter Milan waxay kooxda Lazio iyo kooxda Torino waxayna ku kala baxeen 3-3. Indonesia iyo Napoli waxay ku kala baxeen 1-1. Napoli oo sanadkan bilowgiisii ciyaar aad iyo aad loo bogo ka soo baxday ayaa isbuucyadii la soo dhaafay ciyaartooda hoos ay u dhaceysay. waxa kale oo fooda isgaray kooxda Juventus oo ah kooxda sanadkan loo saadaalinayo 100% inay ku guuleysato Serie A-da Talyaaniga. waxayna fooda istareen kooxda Bologna ayna uga badisay halkan ay ku badisay kooxda Juventus waxaana halkaas u dhaliyay laacibka da'da ayna adduunkoodan ay raadinayaan sida kooxaha waaweyn ay kamid tahay Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona iyo Real Madrid. Bayern meesha kama baxsana. laacibkaas oo ah laacib Faransa ka soo jeeda Senegal abihiisa oo ka yimid laakiin ku dhashay dalka Faransiiska. laacibka lagu magacaabo Paul Pogba ayaa goosha u dhaliyay Juventus hogaankana u sii dheereeyay. wuxuuna laacibkaas u sheegay waraysi uu siiyay TV-ga Rai Sports dalkan Talyaaniga inuu ku faraxsan yahay Juventus oona sii joogi doono. wuxuuna sheegay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro Andrea Pirlo, Gigi Buffon oo ah Porto iyo wiilka khadka dhexe maamulaha kooxahana ku aanbaxayna ku ah xariif ee lagu magacaabo Vidal wiilka reer Chile. waxa kaloo fooda istaray Fiorentina iyo Roma oo ah kooxda kaalinta labaad xajisanayso sanadkan. Roma hal waxay u badisay kooxda Fiorentina oo ah koox uu tababaro u yahay wiil hooyadiis ay tahay Soomaaliya ay ka soo jeedo magaalada Muqdisho. warbaahintu ay sheegaysana ah gabar ku dhalatay xaafada Hodan. waxa halkaasi eber ku badisay kooxda Roma oo ah kooxda xajisanayso kaalinta koowaad. Liga Isbaaniya isbuucan naftirkiisa isbuuc xaarana ayuu ahay maxaa yeelay sanadkan waxaa si aad iyo aad u xarageeyay kooxda Atlantic Madrid oo eber kaga badisay kooxda Alja oo Osasuna iyo Valencia hal ay isku dhaafi waayeen. Real Sociedad waxay 2-1 uga badisay Espanyol oo labada ay guusha ku raacday Real Sociedad. Almeria iyo Celta Vigo. Almeria 2 gool ayay dhalisay, Alfigana 4 gool. halkaas Celta Vigo ayaa guusha ku raacday. waxa kale oo ciyaar caaw aad iyo aad loo sugayo ay ka dhici doontaa istaadiyaha ugu weyn adduunka ee lagu magacaabo Nou Camp oo ah istaadiyo ay milkidiisa ay leedahay kooxda Isbaanishka. Nou Camp ayaa wuxuu martigeli doonaa Atlantic Bilbao. Barcelona ayaa martigelin doonta Atlantic Bilbao. waxa ay farta ku godan tahay qaar kamid ah ciyaartooyda Barca iyo tababaraha Barcelona oo 3 ciyaar la soo dhaafay laga badiyay Champions League oo ay ka badisay ay raatay kooxda Atlantic Madrid iyo Liga oo la reebay iyo koob dalhay oo ay ka qaaday isbuucan dhexdiisa Real Madrid oo dhaawac ka ahaa weeryahankeeda ay ku qaarato Cristiano Ronaldo. احنا فرحة السنة دي كله يهلل كله ينادي كله يفتح قلبه يحلم
badan Premier League-ha dadka dunida ku noolna indhayo kubadda cagta waxay aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin Liverpool oo ah kooxda Ingiriiska ugu koobabka badan kooxdaas oo sanadadii la soo dhaafay ay masiibo ku